geliso oo hoos sii geliso wasiirkana waxa laga rabaa inuu dhiso agaasimihii guud iyo intii ka hooseysay inuu dhiso la rabaa kadib shaqadu meesha ay ka bilaabanayso hoose yaa ugu dhibka badan marka agaasimaha madaxa qaybta ugu shaqo badan wuxuu ka shaqo badan yahay madaxa agaasinkana wuxuu ka shaqo badan yahay agaasimaha guud wasiirka ugu shaqo yar marka laakiin hadda saas ma aha wasiirka laga yaabaa wuxuu dhan inuu qabto yaa laga yaabaa waxa laga yaabaa barnaamijka hawsha dadka inuu qabto wuxuu dhan waxa laga yaabaa inuu soo biisho madaxweynaha oo xafiiskiisa uu noqdo meesha kaliya siyaasna ma aha wax dawlad ku shaqeysa saas ma aha waa fooror ninaan magaciisa sheegayo mise jaamici oo magaalada jooga yaa wuxuu yiri waa macallin jaamacadu macallin ka yahay wuxuu yiri ardadii baa waxay weydiisay Soomaaliya maxaa ka halaysan ninkaasina anigu iga weeyay baahan iga weeyay wuxuu yiri waxa ka halaysan hal action kaliya hal ficil kaliya ku tusayay wuxuu sameeyay fiiriyo kabuu iska siibay darbu fuulay darbisaar uu sameeyay darbisaar ma xasuustaan anigu sifuu sameeyay laha marka isma lahayn qof konton jira ama 40 jira ee darbisaar sameey kara wuxuu ku tusay kaliya hal action hal ficil ku tusay wuxuu yiri Soomaaliya ma aragtaan waa noocaan madaxiga hooseeya lugihiina waa korayaan marka waxa weeye inaan si nidaamsan oo proper aan hawsh u bilowno qof walba uu dulqaad yeesho dulqaadkaas lagu gaaraa in dal uu ku dhismo taasi waa mid labaad oo aan ka shaqeeyno waxay tahay inaan bedelno fikirka laga qabo dawladnimada inaan bedelno fikirka dawladnimada laga qabo 4.5 waxay lagu soo biirisay hawl cusub iyo lagu soo biirisay oo ah in lagu qaybsado dawladnimadii iyo shaqadii 4.5 qabiil lagu qaybsado oo aan la fiirin tayo iyo quality aan la fiirin oo aan la fiirin qofka inuu jaamacad ka soo baxay oo aan la fiirin qofka khibrad inuu leeyahay oo la yiraahdo ninkan bal hebel iyo ka yimid hal geeyo meesha way nagu dheeraatay awal waxay ahayd inaan ku soo fuulno saaxada dawladnimada inaan ku soo fuulno kaliya laakiin waxay nagu qaadatay 17 sano nagu qaadatay waliba waa ku jirnaa oo waa uga dalcilaanahay korna waa uga socon laanahay inaan qaab ahzaab iyo qaab mabaadi inaan dawladaheena ku dhisano iyo qaab qof walba lagu qiimeenayo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo Soomaalnimadiisa iyo wadanimadiisa aan ku qiimeeno waxaan ku jirnaa marka inaan bedelno qaabkaas oo ah qofka hadii uu xil hayo in cidiisa dhan ay aaminto qofkaas cidaas inuu matalayo laakiin shaqada wuxuu hayaa ummadda Soomaaliyeed isagiina hadduu sameeynin lagu caayay leeyahay ninkan waa wax matare dadkiisu wax mataro waxay keentay marka qofkaas inuu dad badan eriyo wax darro ku eriyo si uu ammaan uga helo beeshiis uu keeno marka beeshiisii oo aan inta badan laga yaabo waxba garanayn ilaa meesha uu koreysay socod marka hadda maxaa filaysaa marka meel la isku shaqaaleynayo iigay min raga iska dhig dadkaaga ka tagin waxa ka filayso waa xaalad hadda aan ku jirno way oo 17 sano wali aan la dhacayno inaan institutionkii qaranka aan dhisno oo wax walba inflation ay gasho oo qof walba uu yiraahdo hebel uu yaqaan waxba garanayn yaa wax ah in adeerkiisa siiyay aniga la iidiidan isii wax oo wixii ay noqoto tartan qabiil ay noqoto bas aysan noqon tartan dadnimo iyo dad aqoon iyo aysan noqon marka inaan bilowno hawshaas oo xafiiskeenu ka bilowno oo xafiis aan la oran xafiiskan waxa iska leeyahay oo leeyahay xafiiskan waa xafiis Soomaaliyeed oo idinkana iimaanka aad qabtaan oo dagaalkiina iyo kartidiina iyo aqoontiina aad ku tagtaan meesha aragtaan cadaaladiina laakiin ay timaado meesha oo cadaaladii aan ka shaqeyno oo ay waxba ku waayeen nin kale oo xun iyo adoo wanaagsan inay waxba ku waayeen macnaheedu waxay tahay imtixaan in la galo qof walba intuu maskaxdiisa shiilo uu wax ku helo ee inta uu awowgiis magaciisa yahay waxba ku raadin taas waa ka shaqeynaa oo hawsheeda ku jirnaa
طلبات أو أن ردتنا كبدلنا سيدي وفكران ومسماسقة oo iyadana ku dhex jirta systemkeena oo si xun ugu dhex jirta oo lagu tilmaamay in aan dalka adduunka ugu musuqmaasuq badan inaan isbedelna ayaan loo baahan yahay dad islaam nahay dad dhaqan fiican nahay dad wanaagsan nahay inaan lagu tilmaamin dad xun inaan lagu tilmaamin oo aan noqon dadka adduunka ugu wanaagsan awooyaasheena waxay lahaayeen qabay lahaayeen waxyaabaha xunku waa ka xishoon jireen waana ka faani jireen anagana waxaan rabaa inaan saas yeelno si ka fiican marka in aan ka fogaano musuqmaasuq marka koowaad waa haaraan oo inaad qof u eexato oo qof kale aad ku takrifasho oo cadaalad darro aad u samayso qofka qof waa haaraan maxaa yeelay waa lagu soo istaajinaya aakhiro adduunkana intaad nooshahay hay-adda ka shaqaynaysa hor u socon mayso maxaa yeelay qof kaa liifaad keenta meesha lagaa raba inaad keento qof kaa wanaagsan oo hawsha kuu dhisa hadda businessyada maaragta dadka ganacsatada ah Soomaaliya waxay u hodmeen oo dhaqaalooda cirka u maray waxay qortaan qof walba qof ka fiican yahay maxaa yeelay waxay rabaan qof kale inuu lacag u sameeyo qof walba qof ka aqal xun yahay ka aqoon daran yahay ma keenaan maxaa wax la wada leeyahay oo ma ka dhaxaysana maxaa u jiidi taas marka wax la wada leeyahay ma inaan duminaa waxa qof gaar u leeyahay ma inaan dhisnaa wax waafaqaya ma marka saas waxa la rabaa dhaqankaas business ka jira inaan keeno dhaqanka dawladnimada oo aan ka fogeyno eexda marka qof la qorayo tan labaad amaanada ummadda waxa loo soo aruuriyo in si fiican loogu maamulo maxaa yeelay waa haaraan wax ummad ka dhaxeeya oo camoolo leh oo dhagoolo leh oo mid xanuunsan leh oo mid hadda caloosha ku jira leh mid maxaan ku raacdaa aan waxba kala garanayno oo ilaahay iska xansiinin ama waalan leh yaa wax lagu dhiibi marka hadda wax ka qaado carruurtaad u geyso carruurtaada ma anfacsanayaan adna aakhiro waxa ku yaalin xisaabtiga ku taala marka amaanadaas ummadda ay noo dhiibtay in si fiican oo ilaahay hortiisa loo maamulo waxa weeye waa wax aan doonayno in aan dhaqanka siyaasadda aan ku soo darno ama dhaqanka fahamka dawladnimada in aan ku soo biirno si aan ula tartanno ula jaan qaadno caalamka intiisa kale maxaa yeelay kuwa waxna siinayo oo dhahaya dalkan masaakiinta ah dal ma aha dalkan dal masaakiina ma aha ee dadkiisa meel kale ku socda dadka dhahaya dalkan aan lacag deeno waa dal 6 bilood shaqeeya waa dal naga dhul yar waa dal naga khayraad yar waa dad aan ka wanaagsannahay yaa waxay leeyihiin dadkan waxaan u geeno oo raashin u geeno badaheenna waa ceegagan beeraheenna waa jiraan xoolaheenna waa waxa weeye xoolaha ugu badan caalamkaan leenahay yaa waxaan leeyahay dadkan ha loo geeyo masago iyo galey ha loo geeyo muddo bakhaar ku jirtay wax kale ma aha madaxdooda iyo dadkoodaas wata madaxdoodana waxay u maamulaan wixii loo dhiibay si nidaamsan oo dadkooda deeqsiiyaan ma u maraynaysaan xitaa xoolahooda inay siiyaan cayr bini'aadamka iska dhaaf xoolahoodu waxay siiyaan cayr iyo siiyaan si xoolaha loo dhaqaaleeyo u noolaadaan waa gaari karnaa heerkaas inaan ummado kale aan wax siino waa gaari karnaa laakiin waxaa la rabaa annaga mindsetkeenna maskaxda inaan bedelno oo qofkii xil loo dhiibo uusan u qaadan wax isagu leeyahay iyo wax reerkiisa ay leeyihiin waa dembi aakhiro haddii wax ummad ku dhibatay aad qaadato waa dembi adduunyo oo dalkaaga waxaad u keentay dib u dhac yaad u keentay taasna waxa weeye waa waxaan ka shaqaynayno oo loo baahan yahay midda saddexaad oo aan rabno inaan bedelno waxay tahay siduu sheegay abwaan shube inaan nidhaahno dowlad hiblaayo naga wanaagsan oo dowlad shisheeyaan u shaqeeyaan oo aan u adeegaa danahooda inaan joojinno soomaalidu qabbay lahaan jirtay dad isku filan iyo ahaan jireen dadka ajnabiga ah si wanaagsan ula macaamili jireen xiriir fiican ula lahaan jireen oo equal ah tii inaan soo celinno oo aan nalaga sarraynin ceeb maaha taas aan wax isdhaafsanno waxbaad wadataan annagana waxbaan haysannaa si walaaltinimo ah oo ilbaxnimo ku jirto oo walaaltinimo leh aan isu dhaafsanno waa noo baahan tihiin idinkana waa idin baahannahay taasna inaan soo celinno aan noolayno waay waxayna ka imaanaysaa shacabka ka imaanaysa maxaa yeele shacabku markay taageeraan dowladdooda waxay yeelanaysaa oo shacabkoodu ay mid yihiin ay midaysan yihiin aysan gobol u qaybsanayn oo ay qabiil u qaybsanayn oo ay ogaadaan qabkeodii inuu lumay inay gumoobeen hadday taageeraan dowladdoodu
waxaanu baa dawladdu naftigeedu si wanaagsan iyo ula macaamilaysa caalamka oo kalsooni ku jirto laakiin haddii gadaal lagaaga soo jiiroonayo oo dadkaagii la qaybinayo oo laga shaqaysanayo ninkii madaxda ahaa ama shacabkii aysan la socon dawladdoodii la shaqaynayn wixii rabaa lagu sheegi qofka xukunka jecel marka wuxuu leeyahay xukunkaaga ilaasha marka meeshaan dad ma joogeen dalla ma lehe dantaada ilaasho ana taas dooli maayo waxaan rabaa dadkeenu inay yihiin dad wanaagsan oo waalaha oo isku duuban oo aan qaybsanayn oo midaysan oo taageero dawladdooda annagana markaan caalamka la macaamilayno si sharaf leh oo siman aan ula macaamilno oo equal ah waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga saddexdaas arrimood yaa diiradda noo saaran saddexdaas arrimood oo diiradda noo saaranna waxaan ku gaari karnaa annagoo iswadanna oo isqaadanna aniga iyo cabdiweli madaxweyne cabdiweli wada shaqayn toos oo dhow leh iyo dowlad goboleedyada idinkoo la shaqeeya madaxdiinna cabdiweli gacan siiya oo la shaqeeya iyo annagoo dhan oo la shaqeyna federaalka maxaa yeele waxaan waa qori isku dhiib maalin walba qof baa imaanaya laakiin waxaa laga rabaa aniga meeshaan imid inaan horey uga dhaqaajiyo oo xaaladaan imid aan horumar ka gaarsiiyo kan iga dambeeyana uu meesha ka sii qaado taasna waxay ku imaanaysaa annagoo midaysan annagoo waala ah annagoo og wax inaan haysanno oo dal leenahay annagoo og waxaan ku kala duwanayn insha allahna waa gaaraynaa dalkaanna rajadiisu waa taas barwaaqu gaarayaa dadkiisuna waa alay noqonayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu